moogtahay in boqoradii hore ee Elizabeth ay qortay warqad qarsoon taasoo la shaacin doono sanadku markuu yahay 2087 mararka qaarkood waxaan dareennaa in shakhsiina soo eegayo adigoo sii jeeda waxaana lagu magacaabaa gaze direction waana dareen ay maskaxdu bixiso kadib markuu shakhsigu soo eegayo moogtahay in TikTok-gu ay kuu digayso haddaad soo qorto ereyga ah well moogtahay inaan muuqaal cusub soo dhignay barteena YouTube kaasoo ka hadlaya 10 shay ee aanad ka ogeyn Kylian Mbappe isla hadda tagoo soo daawo waad ka heli doontaaye subscribe-na moogtahay in shakhsiga seexda muddo badan uusan faraxsanayn moogtahay haddii aad soo qorto funny face waxa kuu furmi doona emoji cusub oo qurux badan haddii aad ku dhawaaqdo ereyga colorful wuxuu afkaagu u dhaqaaqayaa isla sida markaad ku dhawaaqayso weedha ah I love you kahor inta uusan dhiman Albert Einstein wuxuu dhahay dhowr kalmadood oo luqadda Jarmalka laakiin dhibaatada taagan ayaa waxay ahayd in shakhsiga kaliya ee maqlayba ay ahayd kalkaaliso kaliya taasoo garanay luqadda Jarmalka ma ogtahay in nin jira da'da 70 sano lagu dilay dalka India kadib markuu guursaday saac ma ogtahay in markuu qofku seexdo 12 saac amba 15 saac haddana uu soo kaco isagoo daalan dareemahaas waxa la yiraahdaa hypersomnia ma ogtahay in caaradu ay dishay ninkeeda kadib markay wada galmoodaan halka caruurtu markay weynaadaan ay dilaan hooyadood ma ogtahay in bakteeriyada ku nool cidiyaheena hoostoodu ay ka badan yihiin dadka ku nool adduunka ay loobin inaad follow noo saarto YouTube-ka profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo